Waxaan oo wanaagsan dhammaantiin saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay qodobada xilligan aan idiin hayo waxa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay khilaaf aanan weli banaanka u soo bixin oo ka dhex jira madaxweyne xasan sheekh iyo ra'iisul wasaare xamse cabdi barre kadib arrin ay faafiyeen garabka ra'iisul wasaare xamse cabdi maxaa ka jira in ra'iisul wasaare xamse la rabo in la rido isagana uu damacsan yahay inuu isku sharaxo xilka madaxweynaha Soomaaliya ee 2026 warbixino ayaan idinkaga soo gudbin doonaa insha Allah xogta heshiis weyn oo ku saabsan sidii loo difaaci lahaa badda cas ee Soomaaliya oo ay galeen dowladaha Masar iyo Turkiga kadib booqashadii uu madaxweyne Erdogan uu ku yimid magaalada Qaahira iyo damacii Israa'iil ee badda cas oo sii dhimanaya wararka kale waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh oo lagu wado inuu safar degdeg ah dalka uga baxo xilli toddobaad ka soo aadan loo ballansan yahay qabsoomida shirka Muqdisho maxay tahay sababta keenaysa inuu xilligan adag uu madaxweynaha safar degdeg ah dalka uga baxo iyo madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen oo gudkiisa ay biyo ugu soo galeen kadib dagaallo xalay ilaa iyo shalay ka socday baydhabo xilli ay is hayaan rag xukunka ku haysta qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe-tan iga ilaabin sidoo kaleeto muuqaalka like-ta ka ilaabin aad u mahadsantihiin aynu ku bilowno wararkeena khilaaf aanan weli banaanka u soo wada bixin ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dhex jiro madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale ra'iisul wasaarihiisa Xamse Cabdi Barre saacadihii la soo dhaafay ayaa waxaa baraha bulshada aad loogu faafiyey warar ku saabsan in ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu qorsheynayo inuu isku sharaxo xilka madaxweynaha Soomaaliya ee 2026 ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa horey meel fagaara ah uga sheegay inuusan doonayn in uu la tartamo ninkii qalinka ku soo magacaabay oo uu la jeeday madaxweyne Xasan Sheekh laakiin hadda waxaa soo ifbaxaya warar iyo macluumaadyo kala duwan oo ku saabsan ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre inuu doonayo inuu boorka iska jafo isla markaana uu muujiyo awoodiisa iyo kartidiisa wararku waxay intaasi ku darayaan in hadda uu jiro guux ku saabsan in khilaaf uu ka dhex jiro madaxweynaha iyo weliba ra'iisul wasaaraha ayaa qabaa tabashooyin badan oo ay ka mid yihiin in markaasi looga baxay dagaallo badan oo uu geliyey madaxweyne xasan sheekh kadibna iyadoo aan lagala tashanin markaasi looga dhexbaxay ra'iisul wasaare Xamse ayaa sidoo kale ogaaday qorshe weyn oo ku aadan in isaga la rabo in lagu kaarta baxo isla markaana la rabo markii ay heshiiyaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xubnaha kale ee ka aragtida duban ee aadka u dhaliila siyaasiyiinta mucaaradka iyo madaxda Puntland iyo Jubbaland in heshiisyada waaweyn ee la geli doono uu ka mid noqon doono in xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse la rido isla markaana la keeno xukuumad dhinaca mucaaradka ay markaasi ku qanacsan yihiin oo doorashooyin qaban kara haddaba ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo arrimahaasi oo dhan la socda ayaa lagu soo waramayaa in iminka uu qorsheynayo inuu ka shaqeeyo sidii uu u shaacin lahaa in uu u sharaxan yahay xilka madaxtinimada ee Soomaaliya isla markaana in uu uga bixi lahaa xeyndaabka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inkasta oo ra'iisul wasaaraha uu aad u qabow yahay haddana waxaa lagu soo waramayaa inuu jiro khilaaf aanan weli si rasmi ah banaanka ugu soo bixin oo ka dhex jira madaxweynaha iyo sidoo kaleeto ra'iisul wasaarihiisa Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaare Xamse iyo madaxweyne xasan ayaa wada shaqeynaya muddo markaasi ka badan 3 sano iyo bar waxaana ay ku dhawaadeen amaba ay hadda ku dhow yihiin in muddaxileedka isla dhameystaan waxaana ka dhiman in ay markaasi muddaxileedka isla dhameystaan wax markaasi ka yar 5 bilood laakiinse siyaasadda waddanka oo aad u cakiran oo la doonayo in la furfuro madaxweyne xasan sheekh laftarkiisa uu doonayo inuu kaarta baxo ayaa keenaysa inay kala tagaan madaxweyne xasan sheekh iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaare Xamse haddii uu aqbalo arrin bahdilaad ah in lagu sameeyo oo siyaasiyiin lagula kaarta baxo waxa uu noqon doonaa mid ka mid ah ra'iisul wasaarayaashii ugu liitay ee soo mara waddanka isla markaana aanan qaadin wax tallaabooyin ah oo uu isaga difaacayo ficilada lagula kacayo madaxweyne xasan ayaa hadda aad loogu eedeynayaa in uu ku sameeyey ra'iisul wasaarihiisa dhabarka toogashooyin aad u fara badan oo ay ka mid yihiin in dagaallo badan oo uu markaasi wax ka geliyey uu uga baxay isagoon la socodsiinin sida Axmed Madoobe oo dagaal adag uu la galay haddana Axmed Madoobe uu la heshiinayo madaxweyne xasan sheekh iyada oo horey warqad waaran ah looga dhigay arrimahaasi iyo kuwa kaleeto oo qaabkaas oo kaleeto ah ayaa lagu eedeynayaa madaxweyne xasan inuu ku sameeyey ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre taasina ay keentay in ra'iisul wasaaraha si weyn markaasi loogu dhaleeceeyo oo dadka qaar xitaa aflagaadooyin ay u geystaan iyaga oo soo daliishanaya arrimahaas
sida inay adeegsadeen erayo ay ka mid yihiin ra-iisul wasaaruhu waxa uu u shaqeeyaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud amaba waa xoghaynta madaxweyne xasan sheekh sida uu horey u shaaciyey amaba uu u yiri madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni. aragtidaada qaybta hoose ayaad inagula wadaagi karaysaa. qaybaha kale ayaan sii aadayaa. heshiis weyn oo ku saabsan sidii loo difaaci lahaa badda cas ee Soomaaliya ayaa waxaa galay dowladaha Masar iyo sidoo kale Turkiga. kadib booqasho uu magaalada Qaahiro ku yimid madaxweynaha waddanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa wuxuu kula kulmay magaaladaasi dhigiisa dalka Masar Cabdilfataax al-Siisi. waxay ka wada hadleen ugu horreyntii arrimo ku saabsan sidii iskaashi weyn ee u yeelan lahaayeen labadaasi dowladood ee muslimka ah, islamarkaana ay isaga kaashan lahaayeen arrimo badan oo ku saabsan damaca Israa'iil geeska Afrika iyo weliba bariga Afrika iyo si lamida bariga dhexe. wararka iyo macluumaadyadu waxay intaasi ku darayaan oo ay sheegayaan in madaxweynayaasha wadamada Turkiga iyo sidoo kale Masar inay ku heshiiyeen oo ay qalinka ku duugeen heshiis weyn oo difaac ah oo ku saabsan sidii ay u wada difaacan lahaayeen badda cas oo ay doonayaan inay saameyn xoogan ku yeeshaan. heshiiskan waxa uu dhigayaa in dowladahani ay isku soo gurman karaan haddii midba midka kale caawinaad uu weydiisto. sidoo kale heshiiska waxaa ku jira in la difaaco badda cas ee Soomaaliya islamarkaana ay isku fidiyaan dowladahaas si meesha looga saaro damaca Israa'iil ee ku aadan inay iyaduna isku fidiso qaybo ka mid ah geeska iyo sidoo kale badda cas. labada dhinac ayaa hadda arrintan ku heshiiyey. waxay sidoo kale soo saareen warmurtiyeed ay si wadajir ah ugu taageerayaan madaxbannaanida Soomaaliya iyaga oo diiday aqoonsigii ay Israa'iil siisay Somaliland, waxayna sheegeen in arrintaasi ay tahay gardarro cad oo ay Israa'iil ku qaaday madaxbannaanida Soomaaliya. Masar iyo sidoo kale Turkiga waxaa arrinkooda sidoo kale ka horreeyey Sacuudiga iyo weliba Turkiga oo sidaasi oo kale iyaguna u soo saaray war la mid ah kaas. madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa labadii maalin ee lasoo dhaafay waxa uu booqasho ku tegayey amaba uu ku joogay wadamadan Masar iyo sidoo kale Sacuudiga. dowladda Soomaaliya waxay helaysaa taageero aad iyo aad u ballaaran oo kala duwan oo la xiriira arrimaha dibadda iyo in si weyn looga hor yimid arrimaha damaca gurracan ee Israa'iil ay ku kala qaybinayso Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. barnaamijkeena wararkii ugu dambeeyay ayaad la socotaan. qaybihii dambe ayaan kusii shaqeynaa. xogo la helaya waxay tilmaamayaan in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu safarro degdeg ah dalka uga baxayo xilli toddobaadka soo aadan loo ballansan yahay qabsoomidda shirka Muqdisho. macluumaadyadu waxay sheegayaan madaxweynaha inuu safarro ku kala bixin doono wadamo ay ka mid yihiin Itoobiya, waxaana uu la soo kulmi doonaa madaxda wadamadaasi. madaxweyne xasan sheekh oo isagoo ku andacoonaya inuu markaasi wado dadaalo diblomaasiyadeed oo lagu difaacayo madaxbannaanida Soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa lagu eedeynayaa in uu markan xagaldaacinayo shirka Muqdisho. laakiin xogihii ugu dambeeyay shirka Muqdisho waxay sheegayaan in shirka uu qabsoomi karo 9 ilaa 10 bishan aynu ku guda jirnay ee Febraayo. 9 bisha waxaa imaan doona madaxda Puntland iyo sidoo kale Jubbaland, halka la filayo in markan 10 uu furmo shirkan markan dhex marayo madaxda golaha mustaqbalka Soomaaliya iyo sidoo kale madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya. waxaa halkaasi laga dhursugayaa natiijada ka soo bixi karto shirkaas iyo weliba sida qorshaha uu noqon karo amaba xaalka halka uu ku dambeyn doono. innagana waxay ku soo kordha shirarkaas Muqdisho loogu ballansan yahay. wararkeena dambe ayaad si toos ah ula socon doontaan. madaxweynaha Koonfur Galbeed godkiisa ay biyo ugu soo galeen Cabdicasiis Laftagareen kadib dagaallo shalay ilaa iyo xalay ka dhacayay magaalada Muqdisho. wararka ku soo kordha akhbaraadka dambe ayaad ku dhageysan doontaan. nabadi.